السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات أيان halkan run ahaantii ugu hambalyeynaya geesinimada iyo maxaan iraahdaa leadershipka uu tusiyay gudoomiye Jawaari waxaan leenahay mahadsanid taariikhda waxaad u galaysaa nin odaya Soomaali ah odaygaas oo run ahaantii muujiyay waqti ay dhibaatooyin siyaasadeed wadanka ay ka jiraan in uu to overcome isla mar ahaantaasina uu si sharaf leh qiimo leh uu meesha ugu tagay annagana waxaan rajaynaynaa in maanta wixii ka dambeeya waqtiga badan ee ummadda Soomaaliyeed uu ka lumay in aan dib loo eegin arinta dhacday arin waxay ahayd process uu siyaasadeed oo wadanka inuu marana ay tahay mar waliba uuna mari doono tan iyo in ka badanna aan arki doono maalmaha soo socda iyo sanadaha soo socdo marka ummadda Soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinayaa oo aan leeyahay waa jidkii dimuqraadiyadda aan fuulnay dimuqraadiyaddana waxay leedahay jidka noocaan oo kale ah cod baa lagu kala baxaa dastuur baan haysanaa waxaa jira procedure la maraa jira procedure-kan wuu culays badan yahay wuu xanuun badan yahay laakiin mararka qaar waa jidka loo baahan yahay in la maraa waxa weyn ogaada isjijiidka iyo arinta dhacday saddexda sitmaan ee la soo dhaafay waxay mar kale test ku tahay imtixaan annaga aan qaadanay ay tahay in marnaba aynan u laabanayn meeshaan joognay waxa weyn ummadda Soomaaliyeed hambaliyaan leeyahay gudoomiye Jawaari hambaliyaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliya hambaliyaan leeyahay waxa weyn procedure-kii sida loo rabay ayaa loo maray geesinimada gudoomiyahana waan ugu hambaliyaynaynaa waxaan leenahay gudoomiye oday Soomaaliyeed oo ugu dhaxnool noqo insha Allah taala qaybtaadana ka qaado dhisidda iyo soo celinta dawladnimada Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh